ومستي إلهي كوياب ملا مقول لي ومقانو كله ونوين لما ديك ركاز عنو ملقنا هو أجيه عيلات ضفه أبو عيل ددوا ضف جري مقعد بشيء ما نروح مقعد ما عندنا حول هذا إلهي عيل كان عد مقليسان وفرحية الصونة أو كميدا قبلها يرك تالنتي قاله التيب توب كعانك كا وعن قد كتلفون كولا حريري أيضا وجوكت مقالة مقدشة فرحية زونا waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed hal abuur kale TikTok-ka aanka ka ah kana duwan dadka kale farxiyo ku soo dhawaad barnaamijka dulqaad mihiidi baadada walaalkay boqol waa ku dhawahay waxa nooga warantaa dad badan codkaaga aad u jecel waana ka duwan tahay TikTok-ka goorma ayaa ku soo biirtay والله رنانتي أنا دان قوشة تيك توك وعن قصة بيري لوادي كون ثواني سجالكي بيش ثواني فوات عن قصة بيري حواي هذه وحا كجرا وغيران شمبل وعن قصة تيك توك تيك توك dad badan ayaa dhageysta sheekooyinka aad soo dhigtid dadka qaar way ka duwan tahay cod ahaan ka waran arintaas رنانتي أنا وحاجة مثلا قفك مركي وأسيا كم مرة مكريو أو أسوي اسمه وجا بالشيء وحالي رياضة كارتين عياريانا لو يجي حدا يا كارلا عشتون تاسو من كتابنا أنا اسمه وجا بندت كتابنا يا يوب لهجة عن كل لا يمكن بندت كتابنا إذا أشياء أنت علنا أنا إنسان واي لهجة أقام لي صوت مسكية يا شام مدلل سيد كداري لهجة أنا كل لا وحنا بلاوي بشان قديه صور waxaan sameyn jiray heeso challenge iyo hadal iska caadi waxyaabaha ku hadal okay mar dhaw bilawday gaadidana waxaan bilawday 2 isbuuc 3 isbuuc qor maalintan bilaabay waxay ahayd wiilba maalin walba ugu dhahay intuu wiilkii u dhaano gabdho la hadlayo dhahay ilmihiina caruurta aabooda hadhiginayay hooyadii hooyadii la taabay ugu dhahay luqadan lahjada aad lahayn iga dhaaf دا معناها لو حلي شدة أو ربطتنا بهذا الشيء وأنا اللهجة هذا كلها شو حاله لها وحكومة مثلا. راجل. أنا دي هو قاعدنا عاية ربع إن وأنا شيء اللهجة إذا أنكو إقامة اللهجة الإسلامية يعني استدعاء دقيقة كي أنكو بتنادي وأمانة إنه صوص على شقة صوص على ويل وجوده ولا يناقر حباتهم حاله وينه. راجل. markaas waxaan isku dayay lahjadii aan ku hadlo maadaama lahjadina aan haysto oo ahay qof miyi ku soo koray oo in badan dhaqankeeda taqaano lahjadii siraysa oo ka taa markaas markaan ku hadlay caawadi markaan afarta cala markay tahay waxaan arkay dadka friends ilaaha oo meelo badan soo wacaayo ilaahay qatara tahay tawa haduu saa ka helnaysa maalintii ka dambeeyay waxaan garowsaday in aan wax kale ku hadlin maadaama hadlaayo in lahjadeedu ku hadlo هذا هو وكدي وانت دتك كلا لاجدها كوادشد قابك حتى حجاب ايا قادتا دتك مكو ويديان وكدي وانت قبلها كلا قابك يسو لبستان دتك ويديان waxay waxa ugu darneeday wiil waxay tahay naas malihi dabana malihi dadka aan ku boonboonayaan TikTok maxay ku joogtaa waxaan ku dhahay TikTok dhexdeeda lixaad hada qabto waad farxan tahay waad fiican tahay waad wanaag badan tahay asturnaantaada lagama taganayo waxa ku jiro codkeyga iyo jalbaadkeyga dadana ugu jecel marka xaalli ahaadaan tahay waxa jirta dad inta badan idho xijaab leh wada maalinka xijaab leh wada hada xaflad aad xataa xijaab ma qaadanay ani muhiimadu waxay tahay maalinka xaflad laga maarmaan ay tahay xataa inaan xijaab qoora qaato ee raaxad aan ka dul qaato ma xijaab la'aan inaan soo taliyo ma jeceli رنان مرجع أنا أصلا عن بلاد أنا أقول الله وحنا استيادي دوري الصوم واحد إسكيري أهان وكلوه لكن هذا دوري يصدق كن دعوته معنا كلو إذا هذي ماشي صراحة تحت نغيران لباسم كن إن عدكي يصور عاد رنان أنا أدان كلها هذا عدك أنا أقول هذا مجلو ويجي إلى يدري وعدكي ولا جدي كل هذا كان أدي يسوي على مكان ربنا كلها هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالوران عبا
magacaaga deebahay lama raysid dilaniga ma macnaa caadi ila tahay عادي كله waa xaqiiq real taas waxaa ka taaban karaa ma xasuustaa waxaan xaafadeeda si kale wadba xaafadeeda socday wiilashayna gacanaha inii taagay bayga yaabsa mugaana gacan inii taagay mugaad waxaad leedihiin naa qurxan ma lugayso baasanimo gulidiin wala dhib jow maaha mugaad tiraahdo baasisi wuxuu ku leeyahay wiligeen naag baasamasi nimankaa shukaansato baasaa ku siyaana waa ku leeyahay yaa aqliga laamugoy baasa laga qaadaa run ahaanta ani hamigaan waqti badan aan soo daba joogay ilaa yaraanteydii waxaan jeclaa in aan noqdo weliba dadka dhan ay aqoonsan yihiin siiba waxaan weligay alle ku saami jiray aamino muuse weynay farxiyo calab haaso boosaska istaagiyi inaan maalin soo istaago run ahaanta darajadeedu way ii muuqataa maadaama yaraanteydii aana waxaas ku dadaalin hadeertaanan ku dadaalay alxamdulilah hadda weli waa ahay oo idaacadda ka ahaa ka howlgalaa teeda kalena maxaa la dhahayay bulshadana waa maaweliyaa oo hadal markuu iqabto oo la reero boosti ahaan jiray facebookna boosti qori jiray boostii waxaas waa iska dhaafay hadda hadalkii iqabto tiktokaan la tagaa waxaan dhahaa war maysiinaysaane dhahasaana maanay ka dhacda saas namaase midinkaan warhayo midinkaan edeblago kii ben sheegaan waxaan dhahaa beenaad sheegay kii run sheegaan waxaan dhahaa arwaa runtaa reenja waatee hore ugu soco kalena waxaan soo noqday aniga turjumaa biraan adiga sanad waxbaan soo turjumayo filmaan sooyo filmkaan filmaan turjumi jiray waxaa jiro short film yar oo sooyo film isku sameeyey kolley waxaa waaye ani film waa samey karaa jaajiliiste waa ahay weriyi waa ahay maasha allah hamigey waa hor muuqdaan intaasaan kasii wayaa ma fadhiisan newscaster aad tahay weriyo oo warka akriyo hal war war kooban oo ma noo sameyn oo si dhegeystayaasha ay u maqli warka saacadda camala warka saacadda qaabka u akhrisid bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee farxiisoona qodobada aad ku maqli doontaana waxaa kamid ah farxiisoona oo maalmihii ugu dambeeyey la holin waayey zaaidna u sii caanbaxaysa dhanka kale taageerayaal badan ayaa farxiisoona gacanta u haasinayna ayagoo doonaya meel ay kala xiriiraan iyo si ay ayada ula hadlaan sidoo kale waxaan meesha ka marnayn taageeraheeda in ay si wanaagsan ay usoo dhaweyso farxiisoona isla weynina aysan marnaba isku dheehin waxaa kaloo jira farxiisoona in ay iska qalbi furan tahay dabeecad wanaagsan tahay mujaajiladeeda iyo qosolkeyga aad iyo aad u fiirsadaan maadaama ani facebooka maalinta keliya dad badan ay usoo darsado waa fikri marka waxaan isnahay maanta markaa dad badan aa aqbasho adinaa mashquule whatsappka lagala soo hadla intaa lagala soo hadlaa email lagaa soo waca waxaan ku fikri marka inaan base sameeyo dad badanaa waxay ugu dhaheen anaga tiktok ma daawano commentiyadooda aragnay waxay dhaheen gabadhan maalmahan videokeeda amaakin tiktok ma daawano may page noo sameyso may codsigooda waa u tixgeliyey pagea sameeyey pagekana waxaan kor kaga qoray numberkeyga whatsappka si oona aqbalaada aysan u raboonin markay numberka soo helaan ay usoo hadlaan anina aan ugu jawaabo social media dhanba intaas waa jirtaa social media anigu waqti badan aan kusoo jiray waxaa jira dad ani farxiisoona sanadkan 2019 la baxay 18 iyo 17 waxaan ku joogay sucaadisiisii dad badan oo email live aan isticmaali jirno sucaadisiisii yaqaanaa jiro laakiin waxaa jirto aalad aanan weligay isticmaalan instagramka iyo snapchat waa samaystay laakiin waxba kama isticmaalo waan soo daadaawadaa wixii lasoo dhigay keliya ma isticmaalo marka hadda waxaa u badanahay tiktoka whatsappka iyo facebooka oo inta badan aan saaxiibada kala xiriiro run ahaanti ani hibadan waxaa ogaaday anoo yariista oo waa da-yaraa waqtiga waxaan ahaa adiga 16 jir meelahaasaan ahaa markii meel la iskugu yimaado inta badan macnaha gabdho iyo wiil markii meel la iskugu yimaado waxaan ahaa qofka ugu kaftanka kulul aanan weligiisa xanaaqin qofkaan hadal ku rido waa igu wada qusi jiro qofkaan hadal dhaho waa markaas heer waxaan gaaro aan dhaho horta ani markaan hadlo maxaa leeyigu quslaa ana dadka maxaan ka duwanaa markaa dadka saaxiibada inta badan waxay dhihi jireen youtube sameyso tiktok sameyso wallahi billahi taala markaas waqtigaas waa laga soo gudbo intaa yaraay oo social media ma isticmaali jira markaas حتى ثلاثة حتى موجودين جري أصحاب تو اسمه ما جري ما اسمه جري حد مركي أو
18 meelahaas la soo gaaray ee waxay dhaheen farxiyo waa inaad samaystaa TikTok waxaan dhahay TikTok ana marka hore waa necbanaa jiray waayo waxaan ku necbanaa jiray waxay ahayd gabar qaadan aad arkaysaa nin oo waxaa arkaysaa si caay samaayo waxaa arkay gabar caay samayso waxaa arkaya qof ku mashquulaayo ma jecleen markaan soo dejiyo waa iska bileeyay marka waxaan ku dhiiraday 2019 bishii 11 waxaa ii dhamaatay journalism saxaafada kasoo qalin jibiyay isla 12 idaacadda radio Banaadir ka shaqo bilaabay RBB anoo ka shaqeynayo waxay ugu dhalatay maadaama duhurta markii la soo qadiyo ana shaqo lagu jirin in aan klibi yaro wacyigelin aan sameeyo aan digo ani iyo asxaab loo soo shaqo jirnay qaadan qaran dhaqo iyo cabdishiin ragta wiilada jiray isla sameyn jirnay waa dhigi jirnay markaas wax saameyn ma laheenin idaacaddan ka soo weecday ka imaaday ka qof wax ila tugtaa waay waxaan ku fikiray hadalkii amba wixii aan arko ee aan fahmi waayo in aan aniga aan ka hadlo oo kaligay aan ka hadlo inta badan waxa caqabado waxa isku jiro xagga dumarka taaga imaanayo dhaayo hay xijaab aan wadataa hay xijaabkaado waxa dhacday aniga maalintii inaan 10 video 20 video aan duubo laakiin aan soo guliyo 3 xabo inta kalena drift markaan dhaho waxa laga yaabaa habeenada kama maalin inaan meesha arko aan ka dhig soo dhigo markaas waxa lagu leeyahay halka xijaab ma qabtaa ma social media ma waxa loo baahan yahay magaca soona run ahaantii ani marka hore farxiin diina Facebook isticmaal jiray magaca soona wuxuu ii baxay 2019 bishii saddexaad ama bishii afraad journalism oo markii waa bilaabay dhahay laakiin aan bilaabin waxa uu la taliyay wiil Cabdifitaax loo oo markaas waqtigaas Masar uu joogay wuxuu ugu la taliyay wuxuu dhahay ma saxafiid ma naqanay haasiyada weligeed calaayaan dheeraa basaan rabaa wuxuu dhahay saxafiidda naqanaysa naas hadda saxafiidna qasameyso magaca Facebook bedel qiimaha bedel waxa dhan iska bedel markaas waxa ku dhaca maxaa la baxaa wuxuu magacaaga waxa ku darsanaysaa naas farxiyo ugu soo warceli wuxuu dhahay anaa ku soo raadinaa uu ugu dhahay oo isoo luqay wuxuu dhahay zona ku darso okay amarkiisu waa yeelay zona ku darso marka farxiyo zona saasay u baxday waxa jiro ruux kale asagana ii baxshay zona nuura laakiin zona nuura magaciiga baa meesha ka baxay YouTube channel run ahaan horta YouTube hadda ma ku shaqo bilaabin laakiin farxiyo zona official qoran qofka markuu uu shaqo bilaabo warabana waa iska jirta caqabooyin badan iska jiro waxa loo baahnaa laptop waxa loo baahnaa microphone maadaama intaas ani aan awoodin waxaan sameeyaa video TikTok aan ku soo sameeyaa aan ku soo duubo clipkeeda halka daqiiqad aan soo dhigaa laakiin insha Allah waa laga baxayaa kan waa laga baxaa insha Allah walaalahay markii la helo si fiican u soo shaqeyn gali doonaa laakiin ku shaqeyn waxa kula talinayaa dhalinyarada waqti hore anaga wax jaanis uma haysanin uu kalifi jirtay marka rabno in aan macnaha hibadeena aan gudbino danta waxay uu kalifi jirtay in xafladaha mas'uuliyiinta ka soo qayb galaan sida xafladaha jaamacadaha iskuulaadka inaan waxyaabo majaajilo ila qosli waxaas aan ka sameeyno laakiin hadda waqtigu waa jaanis haysan waxa waaye adoo gurigaaga iska joogtid adoo holaha shaqo ku jirtid TikTok aad iska sameyso hibadaada ku soo bandhig waa markaas dad badan oo aqoonsanayo oo ku baranayo waxaad helaysaa taageero badan oo kugu xirnaado waxaad helaysaa dad ku dhiirigeliyo waxaad helaysaa dad ku qarab qabto xataa dad wax awoodin waxay kugu tari karaan kugu taraayo marka waxaa dhalinyarada qofkii hibo leh hibadiisa soo bandhigtay iyo isku celin waqti badan oo isku celiyay anaa soo bandhigay maasha Allah waa ku faa'iiday waa taas waxa qof adartan dadka dhan wada jecel yihiin boqolkiiba adiga 5 waa inta dhalish iga imaato inta kala boqolkiiba 95 waa dad iyo taageersan oo jecel aad weyn maasha Allah aad iyo aad ayaad ku mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad siisay janankana waa dulqaad media aniguna waa wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed وجوفا waxaan wareysanayay farxiyo zona oo gabadh aad iyo aad attractive ah oo soo jiidasho leh codkeeda TikTok kana mar dhow kusoo xijaabkeeda lagu yaqaan xijaabkeeda lagu bartay waxaan ku okay waxaan ku ridinaa wareysiga la yeelanay farxiyo zona fadlan hadaa ku cusubtahay channelka subscribe dulqaad media freelance journalist Cabdinaasir Juufaa